Assalaamu calaykum kusoo dhawaa channel mahad haddaad madax xanuun ama cajis iyo stress aad dareentid inta badan waxaad sameysaa waxyaabo ku cajib gelinaya ama maskaxda ku dejinaya kuwaasoo intooda badan ay yihiin inaad wiish raacdid ama wiifo ama si dabaal iyo wixii la mid ah aad tagtid laakiin waddanka China haddaad tagtid waxaad ka heli kartaa waxyaabo aad iyo aad cajiib oo haddana halis badan haddaba qaar ayaga ka mid ah aan wada fiirina haddaba meelaha aan maanta booqan doono ayaa meelo aad iyo aad u qurux badan halistoodana wata mana kugula taliyeen haddaad tahay qof wadna xanuun iyo wax la mid ah qaba inaad tagtid haddaad isleedahay waxa aad arki doontid inay yihiin waxyaabo mustaxiil ah ogaantid lahaw Chinaha inaa far loogu taagay inay sameeyaan wax kastaba meelaha hadda aan arki doonana waa meelo aad iyo aad u qurux badan oo ku yaala meelo buuro korkeeda ah kuwaasoo sanad walba ay imaadaan dalxiisyo kor u dhaafaya dhowr boqol oo kun oo isku tijaabinaya geesnimadooda halaha ay la eg tahay wiifowgan aan u jeedno wuxuu dhulku u jiraa 300 mitir dadka inta badan waxay dhahaan 300 mitir meel dhulku jirta inaan wiifow ku ciyaara wax saas oo halis badan ma ahan dadka inta badan inta soo booqda ayaa waxay dhahaan anigu waxba ma ka cabsanaa inaan inta ka tuura marka ay safka gadaal uga jiraan laakiin marka ay tookadooda soo gaartana waxay bilaabaan inay gadaal u cararaan ayaga oo gacmaha iyo lugaha ka gariiraya horaana loo dhahay habar fadhida ligda la fudud ah oo wax walba isku mid ma ahan markii afka laga sheegayo iyo markii la qabanayo buundadan geebgeedaba xagga hoose waxay ka samaysan tahay muraayada waxaana la dhahaa waa mid adduunka ugu dheer qiimaha lagu sameeyayna wuxuu gaaraa ilaa 6 milyan oo dollar haddaba buundadan markaad kor socotid ayaa waxaad arki kartaa wax walba oo ka hooseeya dheerarkeeda ay dhulka u jirtana waxa waaya 1180 mitir haddaba ka fikir bal adiga oo buundadan saaran oo si kadis ah hal mar buundadii hoostaada ay ka dillaacda adiga oonan wax suun ah ama wax ku badbaadinayaan aysan jirin maxaa dareemi lahayd haddaba buundadan markii la kor socda inta badan dadka oo soo booqda waxay arkaan waxyaabo zaa'id u cabsi gelinaya taasoo inay hoos ka dillaacda mana ahan dillaacid dhab ah waayo dadkii sameeyay ayaa ugu talagaleen oo waxay hoos ka geliyeen sensor markii lagu istaaga ku muujinaya inuu dillaacayo ma ku cabsi gelisay buundadii muraayadeedan hadda soo dhaafeynay haddaba muraayad ma lahantan oo waa mid aad iyo aad u halis badan saa u jeedidba buundadan markaad saaran tahay inta badan waxaa la isticmaalaa xarig oo ah safeeti haddaba inta badan waxaa dhaca inaad hoos uga dhacdid ama si xarigu uu kuu baxa haddaad halka ka dhacdidna waa reerka igu salaam oo af Chinese ah masaafada ama space-ka ay isu jiraan alwaaxyadan ayaa ah 50 cm xagga kuwa kale ay gaarayaan ilaa 120 mitir dadku markay inta ka dhacaan ama ay ka sibixiyoodaan oo ay meelahan ku kufaan wax badbaadiya xarigan oo loogu talagalay suunan qofku inta ugu dhimanin haddaba asxaabta waa kee midka aad iyo aad ku cabsi gelin lahaa haddaad tagi lahayd meelahan hadda aan soo fiirinaynay waxaad iigu reebtaa commentiga waadna mahadsan tahay